فت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا أراك تحب عرسا ذات خذر أبت طلقها الأكياس بتا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعنه وناكسن ومركل إيو برنامج كيني سويالك أصحابته aynu ugu talagalnay bisha Ramadaan intay socoto inaynu kaga warramo asxaabtiina Maxamed Ali salaatu wasalaam. Waxaynu soo qaadanay 6 xalqadood oo hore. Maanta waxaanu bilaabi doonaa xalqada 7. Xalqada 7 waxaynu soo qaadan doonaa asxaabiga la yiraahdo Umar ibn Jamuh. Umar ibn Jamuh wuxuu kamid ahaa raggii saadaadkii ama raggii madaxdii ee Quraysheed gaar ahaan kuwii deganaa magaalada Madiina qabiilkii la oran jiray Bani Sama. raggii xukumi jiray ee maamuli jiray ee talin jiray buu kamid ahaa waqtiyadii jaahiligi iyo waqtiyadii islaamku bilowga ahaaba. Umar wuxuu ku barbaaray magaalada Madiina oo uu deganaa markii Nabi Maxamed Ali salaatu wasalaam uu u diray asxaabigii weynaa ee la oran jiray Mus'ab ibn Umayr magaalada Madiina. Reer Madiina badankood way soo wada raaceen islaamka ayay qaateen dacwadana way ajiibeen. raggii farakutiiska ahaa ee diiday waxa kamid ahaa asxaabiga la yiraahdo Umar ibn Jamuh. wuxuu dhalay 3 nin oo geesiyaal ahaa nin la oran jiray Mucaad, Mucawad iyo Khalaad. 3 nin ayuu dhalay. 3 ninna Mus'ab ibn Umayr markii uu tagay waxay kamid ahaayeen carruurtii yaryarayd ee diinta iyo waxa uu sheegay markaa qaatay. Mus'ab ibn Umayr diinta ayuu meel fara badan markaa gaarsiiyay. carruurtii uu dhalay Umar ibn Jamuh qaar kamida gaarana Mucaad ayaa waxa la yiraahdaa markaa diintii ayuu qaatay oo islaamay. deedna markaa xaaskii Umar oo Mucaad hooyadii ahayd ayaa wuxuu ku yiri Umar baa wuxuu ku yiri islaantii nin waxay yidhi magaalada diin noocaas wada oo nabi wuxuu soo faray markaa dadka faraya ee carruurteena inooga ilaali waqtiga ay joogaan carruurtaas 3 inay dhashay Mucaad, Mucawad iyo Khalaad inoo ilaali. deedna waxa ku tiri marxaban waa si wanaagsan oo ilaalinaya balse Umar uu ogtahay inankaaga Mucaad waxa uu wado ama waxa uu mataqaanay markaa la yimid hadda ma ogtahay. markaasuu Umar yiri oo madiintii aabayaashii ayuu ka leexday. markaas ay ku tiri mooyaan balse wax kale hadda wada waxbu akhriyaa nabiga laga sheegayo bal aan kuugu yeeray markaa adigu wax weydiiyo iswaraysta. xaaskii Umar oo hindal oran jiray baa u yeedhay inankeedii Mucaad. xaaskiisii baa ugu yeedhay markaa Umar markaa u yeedhay inankiisii markaas ku yiri Mucaadow maxaa dhacay. Mucaad markaa ku yiri diinta noocaas qaatay ninkani wuxuu akhriyaana waa waxan. markaa Mucaad wuxuu akhriyay aayado quraana aayadaha waxa kamid ah suuratul faatiha ayuu akhriyay alxamdulillaahi rabbil caalamiin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلا ضمادك أيو معاد أخرين. مركو دمي معاد أيو أبيه عمر بن جموح وحكوري waxay maaha gabay carbeed maaha waa hadal aad u macaan ninkan aad raacdeen ee muscabnaydi la yimid warkiisu hadalkiisu dhan ma sidaas markuu inta ku yiri dhamaantii waa sidaasi. Mucaad aabihii Umar ibn Jamuh diinta ayuu ugu yeedhay hooyadiina way islaamtay balse Umar ibn Jamuh wuxuu ku yiri wuxuu lahaa markaa sanam buu lahaa. sanamkaas markaa uu u yaalay manaat baa magaciisa oran jiray loox buu ka samaysnaa. sanamkaasi ayuu la tashan jiray waxna weydiin jiray wax kasta ku soo cusboonaadana sanamka ayuu markaa kala tashan jiray. markaasuu ninkiisa ku yiri diintan way wacaan tahay way wanaagsan tahay balse anigu Ilaah baan leeyahay sanamkayga manaat ayaan kala soo tashanayaa wuxuu aaba yiraahdo ayaan kugu soo celinayaa buu ku yiri markaa inankiisii Mucaad. sanamkii buu tagay. sanamka markaa waqtiyada waxa la dhaahdaa wax hadlaya ma aha wax loox ka samaysan oo aqliga mataqaana markaa aragtoona ma laha balse wax la daba dhigi jiray baa la dhaahdaa islaan ama qof hadlaya la daba dhigi jiray qofkaas ayaa wax la weydiiyay markaa uga jawaabi jiray. Umar ibn Jamuh wuxuu tagay meeshii sanamku yaalay deedna markaa uu la hadlay waxbuu ku celin waayay jawaaba. Umar wuxuu yiri markaa uu mashquulsan yahay waqti kale aan ku soo noqon iskaga tagay. inamadiisii ayagu markaa islaamay Khalaad, Mucaad iyo inankii kale isna Mucawad. 3 inanba markaa waxay ku yiraahdeen way tashadeen waxay ku yiraahdeen bal aaba ka warrama waxaanu caabudayo hadaynu ka qaadno aynu meel ku tuurno bal maadaama Ilaah ku sheegay inuu waxba tarin
haddaynu ka qaadna ka waran bal awoodiisa aynu tusno saddexdiina way u tashadeen habeenkii markaa cadad dhacday bay baxeen sanamkii meel yaalla ayay tageen sanamku waa kii aabahoodu lahaayeen manaat way qaadeen intay qaadeen bay god reer bani islaam lahaayeen bay ku tuureen way iska yimaadeen xaafadii kusoo naqo iska seex saddexdiinan aroortii aabahood kacday wuxuu isiri sanamkii uu ku soo cibaadeyso aroortii markuu baxay uu sanamkii u tagay uu waayay markuu waayay buu raadiyay yaa qaatay markuu waayay buu ugu dambeyn markuu xiiqay buu galabtii ka helay meel god isagoo ku jira meel wasakha dadna uu soo qaaday uu u meeday uu cadareeyay halkii buu dhigay habeenkii labaad namadii soo noqdeen sidii kale ku sameeyay way qaadeen meel bay ku tuureen xaafadii ku soo laabtay marka xaafadii ku soo laabteen ayuu adna aroortii aabahood kacay sanamkii buu tagay wuu waayay wuu raadiyay meel halkii kale ka helay god dadna godkii buu ka soo saaray uu cadareeyay uu u meeday halkii buu dhigay dhowr cisho markay saas ku dhacday buu xisiiriyay waxaan waxba iska celin muxuu yahay seef buu soo qaaday sanamkii uu halkaa degta u suray markaasuu wixii ku yimaada dambe iska celi wuu iskaga tagay habeenkii buu xaafadiisa iskaga hoyday markii uu hoyday waxa dhacday inamadii baa yimid marka intay soo qaadeen ay seeftii halkan loo suray ku googooyeen ayay qaadeen magaaladii ka saareen ay dhintay dabaqda ugu xidheen did markaas god ku tuureen aroortii waa boo soo kacay sanamkii uu raadiyay wuxuu raadiyay waqti dambe ayuu helay deedna markaa wuxuu helay isagoo god ku jira oo ay dhintay dabada loogu xidhay isagiina la googooyay seeftiina laga tuuray markaas uu yiri waxaan aan waxba qabanayn muxuu yahay markasta la dilayo seef baan u soo waxba iska micinayo ay dhintaa lagu xidho waxba ma qabanayo waxaan markaa muxuu nafci leeyahay adwaalkiiba camr ibn jamuux ku fikiray aqlina ku yeeshay deedna markaa sidii uu sanamkiisa ka tagay uu soo islaamay diinta ayuu galay deedna markaa tolkii ayuu ugu yeeray diinta islaamka sidaas ayuu ku islaamay dagaalkii wuxuu ka qayb galay Uhud waqtigu ka qayb galay saxiisi inay mucaadi muqallid iyo iyana kale ayaa noolaa deedna markaa waxay ku yiraahdeen maadaama waa boodlug ay acrajaha ay ku yiraahdeen iska daayo iska fadhi cudurdaar baad leedahay istawuu diiday nabiga calaysalaatu wasalaam yuutuga markaas ku yiri namadaydu dagaalkii bay diiday anama ogoli deedna markaa nabiga calaysalaatu wasalaam wuxuu ku yiri u daaya waa intaas markaa shahiid ku noqday dagaalkii uu dambeyn waa loo ogolaaday wuu galay dagaalkii Uhud dadkii ku shahiiday ay Umar ibn Jamuux kamid ah isagoo asxaab weyna diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala si fiican ugu gargaaray asxaabi qisiis intaas aynu ku soo koobnaa barnaamijka la meeynta ku kulmi doono waxa ka tagay assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala quttu fu'adaka al-ayyam fatta وتنحت جسمك الساعة نحتا أراك تحب عرسا ذات خذر أبت طلقها الأكياس بتا